Soomaaliya haddaynu hayno nin walba gacan nabadeed iyo walaaltinimo u taagayna ninkii inagu diida waliba waa kula barayna waxa warshadaha kaskanaar annaga dagaal iyo rabsho iyo hawl soo dhamaysanay waxaan aad iyo aad uga xumahay magaalooyinkii iyo deegaanadii Puntland aasaasay ee udub dhaxaadka u ahaa ee Sool ay ka mid ahayd inay maanta gacanta maamulka Puntland ka maqan tahay waa ceeb madaxweyne gaas wuxuu yiri faataxa lagu qabsan laakiin inna cadeynaa uu ku bixiyay meesha la yiraahdo tukarraq saxna maaha in loo hibeeyo annagoo leh awooddaas ciidan madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi oo gaaray magaalada Tukarraq madaxweynaha Puntland Siciid Cabdullaahi Deni oo shacbigiisa iskaga cabaya Villa Garowe isagoo aan war iyo wacalba ka hayn xaalka dalka maanta meesha uu marayo haddii soo gaaro muuqaalkeena fadlan muuqaalkan oo la gare YouTube-keena subscribe noo saaro muuqaalka sii share gare ku soo dhawaada qodobkan oo faahfaahsan mahadsanideen madaxweynaha Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi Xildiid ayaa maanta wuxuu gaaray magaalada Tukarraq isagoo wafdi ballaaran oo hogaaminayo Muuse Biixi saaka aroortii wuxuu ku soo jarmaaday magaalada Laascaanood isagoo uu uga sii gudbay dhanka iyo Tukarraq waxaynu ogsoonahay Tukarraq inay tahay aag furan aag dagaal aag ay isku hor fadhiyaan ciidanka Soomaaliland iyo kuwa Puntland madaxweyne Biixi wuxuu maanta ku dhiirtay inuu hortago boqolaalka ka tirsan ciidanka Soomaaliland ee fadhiya furmaha dagaalka Muuse Biixi isagoo khudbeynaya waxa uu yiri annagu Puntland waxa aynu isku haynaa kaliya waa hal shay kaliya oo ah dhanka xuduudaha shaygaasna waa la xalin karaa Soomaaliya haddaynu hayno nin walba gacan nabadeed iyo walaaltinimo u taagayna ninkii inagu diida waliba waa kula barayna waxa warshadaha kaskanaar annaga dagaal iyo rabsho iyo hawl soo dhamaysanay rag nabad waxaan ahayn kuma haynaa bal cawd bilayso ninkii loo taag waayana dawaa suranaha abaalkii uu koraabada hadii aan leeyahay Puntland deris bayna hal qodob baynu isku haynaa kaliya oo aad loo xalin karo war Afrika xadka Afrika ku dhisan tahay isticmaalka tagay xadka Ingiriiska iyo kii Talyaaniga noo dhaxay Afrika oo dhan baynu la qabnaa waa sharci international haddii wax la kala qoonsadana si wanaagsan oo afaal loo dhameyn karaa waynu ugu nacasnimo inaynu colaad galno dadkeena deegaanka isku midka ah oo dadku xira colaadad jooga waa khalad bar haddii la garanayo waxa la isku hayo iyo garteedu halkay tagayso iyo waxa adduunka dhan ka jira loo hayo inaynu cunfi iyo dagaal isu keenaa waxa ila tahay waa nacasnimo inagu mowqifkaas aynu taaganahay madaxweynaha Puntland Siciid Cabdullaahi Deni oo maanta war iyo wacalba ka hayn xaalka dalka meesha uu marayo ayaa shacbigiisa wuxuu iskaga cabayaa Villa Garowe madaxweynaha Puntland waago ololaha ku soo galay doorashada Puntland waxa uu yiri waa nasiib darro maanta inay maqan tahay Laascaanood waagaas uu ololaha ku soo galay iska daaye maanta ciidanka Soomaaliland waxay fadhiyaan dowladka magaalada Garowe waa nasiib darro maanta in madaxweynihii Soomaaliland ee Hargeysa ka yimaaday maanta inuu dowladka Garowe oo ciidanka Soomaaliland uu khudbayo isna uu Villa Garowe uu shacbigiisa iskaga cabayo dalkan wuxuu u baahan yahay dadkiisa in loo shaqeeyo dalkan wuxuu u baahan yahay dadkiisa in loo shaqeeyo dadkan wuxuu u baahan yahay taladiisa inuu urursanaato dadkan wuxuu u baahan yahay madax daacad u ah uma baahna cid ka shaqaysata wuxuu u baahan yahay cid u shaqaysa waxaan aad iyo aad uga xumahay magaalooyinkii iyo deegaanadii Puntland aasaasay ee udub dhaxaadka u ahaa ee Sool ay ka mid ahayd inay maanta gacanta maamulka Puntland ka maqan tahay waa ceeb madaxweyne gaas wuxuu yiri faataxa lagu qabsan laakiin inna cadeynaa uu ku bixiyay meesha la yiraahdo tukarraq saxna maaha in loo hibeeyo annagoo leh awooddaas ciidan awooddaas dhaqaale iyo awooddaas dadnimo dadka reer Puntland waxa la rabaa inay awooddooda muujiyaan dawladnimadooda ilaashadaan dalkooda dhistaan dalka Soomaaliyeed ee hormuud u noqdaan